jaamacadda Golis ayaa casharaf u sameysay macallimiinta iyo dhiimanka fakultiyada kala duwan ee jaamacadda Golis Laascaanood taas oo ujeedkeedu daarnaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada jaamacadda Golis gudoomiyaha jaamacadda Golis Laascaanood Professor Yuusuf Aflaar ayaa mahadcelin iyo bogaadin u soo jeediyay maraaxilka kala duwan ay macallimiintu ka soo qaateen dhisidda aqoonta da'yarta waxaanu dardaaran u soo jeediyay macallimiintaasi oo aan u qabanay macallimiinta iyo shaqaalaha jaamacadda Golis farceeda Laascaanood maadaama jaamacaddu ay qalin jabisay oo hawl adag la soo maray semester-na dhamaaday waxaanu ku talagalnay inaanu iska wareysano hawshii dhammaatay hawsha soo socotana aan u diyaar garowno sidii ay u dhammaan lahayd oo loo wada lahaa marka horta xafladayda ujeedadeedu intaasay ahayd waana mid aanu inta badan qabsano oo horena waanu soo qabanay badalla waanu ka qabsan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo si aan isu baraarujino shaqada soo socota isugu baraarujino tii horena aan uga faa'iidaysano haddii khaladaadkeeda uga faa'iidaysano intaasun bay xafladda ku saabsan gudoomiye dabcan shirkan iyo shir awalaydeen macallimiinta iyo maamulka jaamacadda maxay jaamacaddu soo kordhisay hadda dabcan ku jira koorsada sanadkan jaamacaddu koorasyo cusub oo hadeerto iminka masterka oo kale iyo dee waa la qoraayo registrationkeedii wuu socdaa koorasyadaanu isleenahay aad runtii kordhisayna waxaa ka mid ah injineeriya waa ka mid waayo hargeysa guryaha quruxda badan waxaa dhisay dee ardadii ka baxday injineeriya ayaa dhistay oo desaynkaa u dhisay innaguna waynu u baahannahay maadaama Golis caan ku tahay injineerinka inaanu injineero soo saarno laakiinse waxay u baahan tahay arrintaasu dee in ardadeennu ay fahanto oo ay qaataan maadadan injineerinka ay qaataan si ay u noqdaan dee injineero ha dhowto magaalooyinka dhisa oo dhisayneeya marka waa ka mid maadadaas maadooyinkaan soo kordhina haddii ilaa yidhahdo waxaa kaloo ka mida maadada looga ama sharciga oo kale oo iyada lafteedu aynu u baahannahay maxkamadaheenna waad aragtaan qaar baa waxaa fadhiya dad aan dugsi hoose ka soo bixin waxaynu u baahannahay maantana jaamacadaha waxaa ka qalin jabiyey looga dad aad u fara badan iyadana waynu u baahannahay inaynu soo saarno dad sharci yaqaanaa inaynu soo saarno dhakhaatiirtun baynu ku dadaalnaa dhakhaatiir fara badan baynu soo saarnay meel walba waa joogaan waana wax loo baahan yahay dhakhaatiirnimadu laakiinse waxa weeye inaynu kuwa sharci yaqaanaana soo saarno oo jaamacadda looga ka baxay iyo kuwa injineer ah oo iyaguna dhismaha ka qayb qaata haddii la yidhaahdo oo iyaguna magaalada guryo fiican inooga dhiso dhisayno fiican inoo qabta codsiyo badan oo noo yimi waxaanu istusnay bal in bisha November haddii la yidhaahdo aanu wax kaga darno horraanteeda haddii la yidhaahdo Farxaan Maxamed Caydiid wararka Bulsha TV Laascaanood hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom